Asalaamu calaykum asxaabtayda Daryeel Kitchen soo dhawaada gacmo furan maanta waxaa idiin wadaa baasta laga sameeyay kareem laguna daraayo chicken waxaana ku qarsan khudaar si ilmaha khudaarta neceb ay u cuni karaan insha Allah marka u horeysa waxaan ku bilaabeynaa chicken-teena waxaan isticmaalayaa qaybta shafka oo jilicsan waxaan ku korshubay barbarooni shiidan kadib waxaan ku daray xawaajiga khudaarta laga sameeyay hal qaado ah waxaan ku kor dareynaa filfil yar oo shiidan kadib waxaa ku dareynaa waxyar oo coriander ah ama kabsar caleenta qalalan intaas markaa ku darto waxaa ku dareynaa cusbo yar saliid kadibna waxaa sameyneynaa xawaajiyaasha dhan ayaa si fiican u marmarineynaa waxaa isku daydeynaa meel walba aad ka marisid chicken-ta si oo flavorka uu dhadhan macaan u yeeshto intaas markaa sameyno chicken-ta waa yara qaraacina si ay isla simanto tanna waxay fududeynaysaa markii la dubaayo inay si fiican u wada bislaato kadib intaas markaa sameyno waxaa soo qaadanaysaa birtaawadaada saliid ayaa ku korshubeysaa kadib chicken-ta ayaad saareysaa ama digaagii markaad saartid labada dhinac markay ka bislaadaan ilaa iyo 3 ilaa 4 daqiiqo dhinac kasta markay bislaato chicken-ta dhan ay bislaato waa ka gedineynaa kadibna chicken-teena insha Allah waa diyaar chicken-tana waxaa way flavor ay siinaysaa isla digsigana waxba ha dhaqin ama birtaawada ayaa waxaa ku sameysanaynaa basasha insha Allah digaagana way noo bislaaday inta oo markaa digaaga la dubo waxaa sameynaysaa meel ayaa dhigaysaa si ay u yara nasato si maaragtay digsigii ama birtaawadii rabna inaan hadda isticmaalo kadib waxaa kaloo sameyn kartaa waa jarjaran kartaa hadda kale waxaan sameeyay si dhuudhuub ayaan u jaray si hodhowda markaa baastada ku dartid ee wax yar isla maaragtay isku size ay u noqdaan marka hadda waxaa sameynaynaa saliid ayaan ku daray basal yar iyo yaanyadan oo mid dhuudhuuban ayuu yaanyo ayaa isticmaali kartaa waxaa kaloo maanta marka khudaarta la qarinayo waxaa ka mid ah carrot-kan waan soo xoqay carrot haddaad rabin bocor ayaa ka dhigan kartaa adiga ay khudaar waxaan kaloo ku daray toon yar aan soo xoqay waxaan ku dareynaa barbarooni yar kabsar caleen kadib waxaa iloobay aan ku daray filfil shiidan iyo waxaa la dhahaa khudaar waxaa jirta herbska oo qalalan waxaan kaloo ku dareynaa yaanyo shiidan yaanyada shiidan kalar yarna way siinaysaa waxa aan hadda kor ugu darayna waa biyaha baastada anaga badanaa waa daadinaa laakiin markii lagu daro sugooyinkan oo kaleeto waxay siinaysaa dhadhan iyo inay sugada dheecaan yeelato waxaan kaloo hadda kor ugu shubayaa kareemkana waa double creamka waa caano yaroo yara adag oo maaragtay macaana way u yeelayaan xoogoo nafaqana way leeyihiin baastadana kale ma aha baasto maalin walba la karsado laakiin marmar waxaa waaye waa la karsan karaa waxa aan kor ugu sii daraya waa ujeedin waa biyihii baastada kadib baastadeeni oo soo kariyey oo cusbadeeda waxeeda leh ayaa iyadoo dabka saaran ayaa yar usoo qaadaysaa waa isku dareysaa kadibna digaageeni oo noo bislaaday oo jarjaran ayaa kor ugu dareysaa intaas markay noqoto kulli si fiican isku dhaxgeli waxaan kaloo kor ugu dareynaa farmaajo yaroo soo xoqay intaas markaa isku gelisid baastadeena way isku dhammaatay waxaa sameynaysa dabka u gaabi 2 ilaa 3 daqiiqo kadib waaba diyaar kabsar caleen yaroo cagaarana kora ugu daadiyay kabsar caleenta waxaa cuntada markii lagu daro cuntada waxaa waaye waxay ka dhigaysaa khatar maasha Allah marka asxaabi waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen videogan haddii aad ka heshaan igu soo sheegaray insha Allah commentiga igu soo qora insha Allah waa idin soo badinaya inaan Soomaaliga idinkula soo hadlo luqadeena waxaa waaye mar walba luqadeena waa luqad muhiim ah ilaahay maaragtay walaalaheen Falastiin dhibaatada heesa ayagan ilaahay dhibta ka qaado intaas ayaan idinka mashquulsanayaa maahan laakiin insha Allah waxaa isku dayayaa videogii dhan ay codsateen inaan marba mid idin soo geliyo waxaan idin rajeynayaa intaan insha Allah mar kale wada kulmi doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh